ilaahay baa mahad iska leh. saaka waxaanu joognaa wadadii kala baydh iyo laascaanood u dhaxaysay wadadan inay samaysanto waxay ahayd arrin ilaahay dadka ehelka ah ee mas'uuliyiinta waxgaradka deegaanka degan qalbigooda ilaahay ku soo riday. ilaahay marka uu doono inuu wax meel mariyo cid buu u diraa, cid baa ilaahay qalbigooda ku soo riday, ciddaasaa u kacday oo hawshatan u quntay rag odayaala sida caaqil cabdi fataax cumar, aadan cabdi, axmed cali xasan, rag badan oo ka mid yihiin cabdirasaaq cali sleef, rag badan baa u kacay oo maxamed cali maxamed, rag badan baa u kacay. ilaahay waa aqbalay. wataa maanta aad arkaysaan wadadaas qiimaha ay leedahay, ummadba fara badanna ay ka qayb qaateen. ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala maantii u horreysay laysma lahayn wadadani sidan ayay u furmaysaa ama u sahlanaanaysaa. wax ilaahay qadaray oo doonay bay ahayd inay saa u dhacaysana alle uu ogaa. waxaana rajaynaynaa ilaahay sida uu inoogu duway dhammaystirkeedana ilaahay inuu inoogu dhib yareeyo. shareecada islaamku waxaa la rabaa dadku inay ogaadaan oo fahmaan waxyaabaha waqafka ah masaajidda keliya iyo ceelasha iyo madaarista ma aha, bal rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku daray waxyaabaha iimaanka qaybihiisa ka mid ah wadada oo la saxar tiro oo la hagaajiyo ayaa nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam. markuu iimaanka rasuulku tilmaamayey waa dhowr iyo 60 ama waa dhowr iyo 70 qaybood, waxaa ka mid ah wadada oo la saxar tiro oo wixii dadka iyo dunyada iyo caafimaadka iyo wax walba dhibaya in laga duwo. bal rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam sadaqad inay tahay, sadaqaadka ilaahay loogu dhowaado ka mid ah wadooyinka oo la saxar tiro oo laga shaqeeyo oo loo dhib yareeyo makhluuqu si isugu gudbo dad iyo dunyaba ugu liibaanaan. bal rasuulku wuxuu tilmaamay nin calayhi salaatu wasalaam wado ummaddu ay mari jirtay laan ku soo foorartay oo dadka hadba qofkii soo maraa qabsan jirto maryaha kaga dhigi jirtay, inuu ka duway oo ficilka uu sameeyey laanta uu wadada ninkaasi ka duway in ilaahay ninkii ugu dambi dhaafay, allana ku mahdiyey oo ugu bogay adoonkaasi ficilku qabtay, jannana ilaahay uu ku siiyey. taa micnaheedu waxa weeye ciddii ka shaqaysa ee maal iyo aqoon iyo feker iyo xoog iyo waxqabad iyo talo ku darsata oo waqtigiisa ka mida gelisa wax sadaqa